lixda ciyaarood ee Arsenal ka hor istaagi kara inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo la shaaciyay. Balse daawade, intaanan warbixintan u gudagelin, waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like gareyso, sidoo kale aadna soo follow gareyso. Waxaana ka sii codsanaynaa inaad muuqaalkan u share gareyso saaxiib adiga oo kale ah. Waad ku mahadsantahay la socodkaada iyo taageeridaada har iyo habeen. Khubarada iyo taageerayaasha kubadda cagta waxay hadda ku sii dhow yihiin inay isku raacaan inay Arsenal ku guuleysan karto horyaalka Premier League. waxaana ay aragtiyihii shakiga lagu gelinayay meesha ka baxeen markii Arsenal 2-0 ku xaqday kooxda Tottenham. Hugo Lloris ayaa ahaa midkii qaladka xun sameeyay ee goolka iska dhaliyay ka hor darbadii xoogneed ee Martin Odegaard ee guusha sida dhabta ah ay ugu xaqiiqsatay kooxda tababare Mikel Arteta. Gunners waxay xilli ciyaareedkan socda lumisay 7 dhibcood oo kaliya, waana hal kulan oo laga badiyay iyo 2 ay barbaro gashay. 18 ciyaarood oo ay dhashay ay Gunners badisay 15 ka mid ah 2 barbaro ay gashay iyo mid ay Manchester United ka adkaatay. Inkasta oo ay waqti hore tahay in horyaalka loo cimaamado, haddana waxaa meesha ka baxday doodii ahayd Arsenal kuma guuleysan karto horyaalka. 20 ciyaarood ayaa Arsenal u harsan, waxaana 6 ka mid ah yihiin kuwa go'aaminaya inay horyaalka ku guuleysato ama ay natiijadooda noqon doonto ugu sababa in ay lumiso hoggaanka oo ay isdhiibto kooxda Gunners. Waxay 6 ciyaarood ka bilaabanayaan maalinta Axadda ee toddobaadkan oo garoonka Emirates Stadium ay ku soo dhaweyn doonto kooxda Manchester United. Ciyaartan oo ay Arsenal ku guuleysataa waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo ay Arsenal hore u qaado. 2 ciyaarood oo isku xiga ee Manchester City ayaa iyaguna ah kuwa aadka isha loogu hayo, maadaama aanay ilaa hadda iska hor imaanin kooxda horyaalka difaacanaysa oo ciyaartoodii hore ay baaqatay. Kulamada kale ee adag ee sugaya waxaa ka mid ah Liverpool iyo Newcastle United, halka naadiga la magaalada ah ee Fulham ay iyaduna taxadarkeeda leedahay. Wargeyska Daily Mirror ayaa maanta boggiisa hore ku daabacay 6 ciyaarood oo uu ku sheegay kuwa guusha Arsenal ee xilli ciyaareedkan ay ku xiran tahay haddii ay badiso, kuwaas oo haddii ay dhammaantood ku guuleysato aanay cidna ku qabsanin doonin horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.